السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي مeel kastood ku sugantiin waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay UEFA Champions League iyo qaabka loo ciyaari doono. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay UEFA Champions League. waxaa wada ciyaari doona kooxda Manchester City dhigeeda kooxda Real Madrid. kulan adag ayaa dhaxmari doona Zinedine Zidane iyo Pep Guardiola iyagoo ay ku wada irtami jireen koobka La Liga dalka Spain. hase ahaatee koobkan UEFA Champions League ayay sanadan ku wada tartamayaan labadaasi coach. haddaba may ku guuleysan kartaa dhigeeda kooxda Manchester City iyadoo kulankii hore Manchester City ay guusha ku raacday kadib markii ay kaga badisay gurigooda kooxda Real Madrid 2-1 ay ku badisay kooxda Manchester City. sidoo kale kulan adag ayaa dhaxmari doona kooxda Bayern Munich iyo kooxda Chelsea kadib markii lagu dubtay kooxda Chelsea 3-1 garoonkooda Stamford Bridge taasoo ay keentay niyad jab weyn ee kala kulantay dhigeeda kooxda Bayern Munich. haddaba lugta labaad ayaa lagu balansan yahay isla caawa in la ciyaaro. haddaba midkay guusha ku raacda ayaa u gudbi doona wareegga dhamaadka. sidoo kale kulan adag ayaa dhaxmari doona kooxda Juve iyo kooxda Olympiacos iyadoo lugtii hore ku soo ilaatay 1-1 halkay guusha ku raacday dhigeeda kooxda Olympiacos. haddaba labadaasi kooxood midkii soo badiya ayaa u gudbi doona wareegga dhamaadka UEFA Champions League. kooxda Juve kooxda Olympiacos midkii soo badiya ayaa ku aadi doona kooxda Real Madrid. sidoo kale kooxda Manchester City labadaasi midkii soo badiya ayaa isku aadi doona wareegga dhamaadka. sidoo kale kulan adag ayaa dhaxmari doona kooxda Barcelona iyo kooxda Napoli iyadoo lugtii hore ku soo ilaatay 1-1 ciyaartaas ayaa ciyaar aad iyo aad u adkeed hase ahaatee isla mari waayay 1-1. haddaba labadani kooxood midkii soo badiya ayaa ku hagaagi doona dhigeeda kooxda Chelsea ama kooxda Bayern Munich. haddaba Bayern Munich haddii ay soo badiso waxay ku hagaagi doontaa dhigeeda kooxda Barcelona. sidoo kale kooxda Atalanta iyo kooxda RB Leipzig ayaa isku soo hagaagi doonaan. labadaasi kooxood ayaa markii ugu horeysay UEFA Champions League ay ku wada kulmi doonaan. hadba midkii soo badiya ayaa u gudbi doona wareeggaasi dhamaadka. labadaasi midkii soo badiya ayaa ku hagaagi doona kooxda Atalanta amba kooxda Paris Saint-Germain. haddaba waan arki doonaa labadaasi kooxood midkii soo badiya kuna hagaagi doona kooxda Paris ama kooxda Atalanta. sidoo kale kooxda Atalanta iyo kooxda Paris Saint-Germain ayaa balansan iyadoo ay wada kulmi doonaan kulanka UEFA Champions League. haddaba labadaasi kooxood midka soo badiya ayaa u gudbi doona wareegga UEFA Champions League iyadoo ay ku hagaagi doonaan kooxda Atletico Madrid iyo kooxda RB Leipzig. labadaasi midka soo badiya ayaa ku hagaagi doona kooxda Paris Saint-Germain iyo kooxda dhigeeda Atlanta. haddaba ciyaartaas ayaa la filayaa midkii ay soo badiya ku hagaagan kooxaas ay kamid yihiin UEFA Champions League kana tirsan. sidoo kale waxaa la shaaciyay in ay jiri doonaan kulamada la wada ciyaari doona ee ay wada ciyaari doonaan kooxaha u soo gudba wareegga dhamaadka knock out kaliya iyadoo ay koox kasta ay la kulmi doonto kulan kaliya kooxda ay ku soo hagaagto. haddaba midkii laga badiya ayaa si toos ah u duulaya iyadoo lagu dhameystiri doono quarter finaalaha dalkaasi Portugiiska. haddii aan intaas kaga gudubno wararkii UEFA Champions League wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaartooyda haddii aan u gudubno maalmo dhow ayaa waxaa la shaaciyay in abaalmarinta Ballon d'Or-ka la bixi doonin taasoo ay ka careysisay Lewandowski. arintaasi abaalmarinta Ballon d'Or-ka ayaa loo bixi waayay sababo corona jira awgeeda waayo iyadoo qiimeyntii la sameeynin iyadoo markii hore la sameey jiray qiimeynta kuwa ku guuleysan doona abaalmarinta muddo badan sanado badan isxigxiga ayaa ku guuleystay Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi iyadoo uu dhaxeeyay Modric kadib markii uu ku guuleystay abaalmarinta Ballon d'Or-ka sanadii soo dhaafnay. sidoo kale sanadan ayaa isla alaleewad ku guuleysan karaysa Mario Lewandowski hase ahaatee uma suurtagelin inuu ku guuleysto abaalmarinta Ballon d'Or-ka. intaas waxaan ku soo gabagabaynaynaa wararkeena sportiska aad kala socotay barteena YouTube-ka Aweys Bro. fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe inoo saar sidoo kale barta dhiirigelinta like-ta si aan hore ugu sii socono barta fariimaha commentiga inoogu rab fikradaada si aan uga bedelno barnaamijyada. haddii aad doonayso inaad sidan wax ka bedelno fadlan waxay naga codsiyaa inaad sii sheergeyso fiidiyoyaasha si asxaabtaada kale ay u gaaraan. waad ku mahadsantihiin daawashada aad daawateen fiidiyogan soo dhigay barteeda YouTube-ka. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. anigoo ah Aweys Xuseen Cusmaan. is arag dambe oo xiiso leh waqtigaagana ka faa'iideyso.